shirkan oo ka qabsoomay howlka shirarka dawladda hoose caasimadda Hargeysa ayaa waxa uu hogaaminayay duqa caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Ciidi Solteko waxaana ka soo qayb galay dhammaanba gudoomiyaasha degmooyinka caasimadda Hargeysa gudiyada nabadgelyada magaalada iyo shirkadaha qashinka ka qaada caasimadda Hargeysa waxaana ku saabsanaa sidii loo dardargelin lahaa nabadgelyada magaalada Hargeysa isla markaana loogu diyaar garoobi lahaa xuska munaasabadda 18 May 2019 korna loogu qaadi lahaa bilicda caasimadda Hargeysa xubno kamid ah gudiyada nabadgelyada caasimadda Hargeysa iyo gudoomiyaasha degmooyinka ayaa ugu horreyn halkaas ka hadlay waxaana ay ballan qaadeen inay si wada jir uga shaqeynayaan nabadgelyada iyo bilicda magaalada Hargeysa si loogu diyaar garoobo xuska munaasabadda 18 May hadaan naga xaafid maxamed nuuga waxa naga go'an inaan sidii aan soo bixi jirnay si ka wanaagsan u soo baxno nabadgelyadana aanu ilaalino waxaan u nahay diyaar nabadgelyada si horaan u shaqeynaa si ka badanna waanu ka sii shaqeynaa May baa laga dhawaajiyay iyo nabadgelyada sidii looga shaqeyn lahaa haddana anagu Axmed dhagaxnahay insha Allah hadii Ilaahay raali ka noqdo waanu shaqeynaynaa waan maraynaa 18 May sidii awal baan u mari jirnay ayaanu maraynaa is walba si ka fiican waxaan idinku qaadinaa inaan anaguna taageerad dheeraada idinku siino waxaan ka codsanayaa arintaas inaan iyo shaqada kuma lahayn saaka laga bilaabo inay qolo waliba xaafadeeda ay nabadgelyaduna ay noo hayne beeshii qashin laga qaadi waayo si shirkadaha ay u xisaabtano shaqada uga qaadno iyaga loo xisaab duqa caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Ciidi Solteko ayaa isaguna halkaasi ka hadlay sidaa ka dhawaajiseen shaqada aad u adag oo muhiim ah qaranka u haysaan idinkoo ku amaanan haddana inaad dadaalka sii limin laabtaan sidoo hooyo si ka badan oo u sii dadaashaan man idin rajaynayaa waqti adag iyo duruuf adagna waa ku shaqeysaan waqti ay soo gudbiseen waa idka aqbalay waxaan u diyaar garoobaynaa 18 May iyo sanadkan si xoog loo xusayo iyadoo waliba ku hagaagtay bishii Ramadaan haddana xusku cid waliba oo sii diyaar garoobaysaa saynu degmooyinka ku tartami jirnay insha Allah taala ayaa loo tartamayaa insha Allah taala inta ka hadhayna dhinac kale inuu ka sii wadaynaa tartanka oo ah ololihii qashinka socda in la sii liibin laabo shirkadiinka halkan waan kula shirnay saadaq baan u wada hadalay qiimeyntoodina insha Allah taala ay dhimay markay naga dhamaato wala soo bandhigi doona dhinaca kale duqa caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Ciidi Solteko ayaa la wareegay dhismayaal loogu talagalay fayadhowrka isla markaana laga hirgeliyay seelada weyn ee xoolaha magaalada Hargeysa maayarka caasimadda Hargeysa ayaa dhismayaashaasi ka hadlay waxaan hadaladiisi kamid ahaa waan u mahadnaqayaa African Development Bank care wasaaradda biyaha oo hogaaminaysay hawshan waxaan leeyahay aad baa u mahadsantiin dhamaantiinba waana idinka gudoonay nashqadii iyo sidii fiicnaadeen ku tashanayna waa u dhisteen muxuu ahaa mashruucan iyadoo kuwa kalena insha Allah taala masaajid kale u heeg doono iskuulada leh ee suuqyada kale leh waxaana la wareeg doono waaxda socialka waaxda arrimaha bulshada ee dawladda hoose oo maamuli doonto si ay maamul fiican iyo suuqii dadka si fiican ugu xusho Cabdulqaadir Cabdullaahi Nuur warbaahinta qaranka Soomaaliland Hargeysa.